anigoo ku hadlaya magaca wafdiga ila socday ee Puntland ka yimid waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan halka mahad ballaaran uga soo jeediyo governorka Garissa senatarada iyo xildhibaanada reer Kenya oo u mudan yahay senator Yusuf Haji sida diiran oo kalgacalka leh oo walaaltinimada leh inoogu soo dhaweeyeen magaalada Nairobi tan iyo maalinta nimid ilaa iyo maanta oo fursadan qaaliga ay nasiyeen aad iyo aad baad u mahadsantiin runtii wanaaga iyo farxadda ay qabaan waqtigii la socday sida diiran halka loogu soo dhaweeyay waa mid qiimo weyn noo leh waana midaan ilaawi doonin waxaan rajaynayaa safarkan safarka xiga deyn uu governorka nagu lahaa oo xilliga caleema saarku nagu yidhi Puntland inaan iska gudno oo marka xigta aan Garissa tagi doono haddii la senatarada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ka jooga madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisa wafdigii la socday prime ministerkii hore Umar Abdirashiid prime ministerkii hore iyo madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Gaas martida sharafta leh ee halka joogta ee isugu jirta ganacsatada haweenka culimada dhalinyarada ee dhammaantiin aad baan ii salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaa maanta halka uu nooga furan waa inaan iniga mahad celinno sida sharafta leh noo soo dhaweyseen waxaan qirsannahay abaal weyn inay Kenya ugu leedahay haddaan nahay Soomaali xilligii burburka soo gaaray 1990kii dadka Soomaaliyeed meeshii u soo baxsadeen oo ilaa iyo hadda gacanta ku haysa waa dalka Kenya dad badan ay nolol ku samaysteen dad badan ay deganaansho ku samaysteen dad badan ay dalkooda dib ugu noqdeen dadkaas oo anigu ruuxadeeda aan ka mid ahaa qof kastoo Soomaali oo xilligaas qaangaar ahaa oo fursad u haystay kuwa gadaal ka dhashaan hayna badankooda ay halka soo wada mareen marka shacabka iyo dowladda Kenya waxaan uga mahadnaqaynaa garab istaaga dadka Soomaaliyeed ay mar walba garab taagan yihiin waxaana ku mahadsantihiin xaqiiqda waxaana keenay inkastoo dhulal badan oo loo qixi kara jireen dowladda Kenya waxaa saldhig u ahaa Soomaalida Kenya degan oo runtii wanaagaas iyada hormuud u ahayd mar walbana dadka kale walaalahooda Soomaalida inoo Kenya ee ugu ahaan jiray garwadeen Soomaalidaas burburkooda iyo duruufahooda xaqiiqda marka loo hadlo geeska Afrika ama gobolada bariga Afrika ama magaceeda roo hal yiraahdo waa dad isku xiran oo kala maarmi karin Soomaalidu waxay haysataa fursad aad u weyn waxay ka kala tirsan tahay dalalka ugu muhiimsan oo dalkii Soomaaliya Djibouti Kenya Ethiopia dalalkaas caalamka marka loo fiiriyo nabadgelyadiisa iyo deganaanshihiisa iyo horumarkiisa waxay ku yaalaan geographically meel aad muhiim u ah haddii xaaladda hadda ay kusii jiraan iyagana waa dhumayaan regionkuna waa dhumayaan marka waajib aan bulshooyinka kale ee regionka ku noolayn saaran baa na saaran haddaan nahay Soomaali waxaan u baahannahay inaan dib u milicsano xaaladda aan ku sugannahay runtii dowladda Soomaaliya oo magacii dadka Soomaaliyeed iyadu qaadatay way jiran tahay hadda 30 sano bugtaa maamulkii dowladeed oo hore oo dadka Soomaaliyeed ee inta kala degan ama Kenya degan ama Ethiopia degan ama Djibouti degan meesha qablada u ah oo ay ka sugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda Soomaaliya hadda way burbursan tahay waxaan qabaa meesha kaliya oo Soomaalida regionkaas ku dhaqan dib looga yagleeli karo laga toosin karo waa dalka Kenya saas leeyahay
محايا مسؤولية waxaa hadba qaado qofka is saara marka siyaasiyiinta reer Kenya runtii mas'uuliyad bay is saareen waxay booqdaan ama tagaan ama u socdaan arrimaha Soomaaliya si u hagaagi lahayd waan uga mahadcelinaynaa waana ku gacan siinaynaa dadaalkaas ay wadaan waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo siyaasiga rugcadaaga runtii Soomaali ay hadda leedahay Yuusuf Xasan oo u taagan kaalintaas inuu qaato wili marka Xaaji Yuusuf baan lahaa Yuusuf Xaaji isaguna waa iska xaaji marka waa ya Xaaji Yuusuf Xaaji way soo markaas marka runtii waa aad u mahadsantiin runtii laba qodob oo aad muhiim ah qodob aad baa looga shanqariyay waa nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo oo saldhig u tahay dadkan runtii hadda xag jirka ah oo raba nolosha iyo deganaanshaha deegaanadan inay waxyeelayaan waxaan rajaynayaa arrintaas haddaan nahay dadka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed in si qoto dheer loo fiiriyo waan isleeyahay xal waara waa laga gaari karaa arrintaas waxay u baahan tahay kulamadan ka duwan in laga yeesho oo meel looga soo wada jeesto waa caqabad waxay ku tahay horumarka iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha qodobka kale oo la rabo in aad looga wada shaqeeyo waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa laba la hayaa mid waa hunguri mar walba dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo noloshu waxay tahay faktorka kale ummadaha isku xira marka dadka Soomaaliyeed ruuxadeeda waxa la rabaa inay iyadana qayb ka qaataan si xiriirkooda iyo wadajirkooda u xoogaysto in isdhexgalka dhaqaale iyo wadaaga hadda aan hayno oo ku suman dad ganacsatada iyo shucuub ah in dowladahaas oo dowladda Kenya ay hogaaminaysa in waqti la geliyo oo iska xirnaanshuhu uu noqdo mid ehelnimo iyo Soomaalnimo kaliya uu noqon mid maslaxad iyo danna ay wadaagto oo taasna in laga wada shaqeeyo iyadana waxaan rajaynayaa inay madaxda Kenya ay iyadana xisaabta ku darsadaan si meesha hadda la joogo meel ka fiican loo helo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo maanta qayb ka qaadata nabadgelyo la'aantaas ama ka tirsan ama lagu beer laxawsado ururada argixisada qayb ka mid ah waxaa ku sababaya shaqo la'aanta baahsan iyo dhaqaale xumada haysata marka la dagaalanka fikirkan xag jirka ah iyo nabadgelyada ka soo horjeeda daawadooda maaha in lala dagaalamo oo si military ah loola dagaalamo kaliya laakiin waxay u baahan tahay si kobac dhaqaalana in loola diriro oo dadku inta lagu khaldaayo laga gooyo oo isku socodka xuduudaha Soomaalida u dhaxaysa la formaat gareeyo oo sidii hadda yihiin si laga bedelo oo masaalixda la isku xiro oo dadku isdhex galo oo danuhu ay isdhex galaan si nabadda loo wada ilaashado marka arrintaasna waxaan rajaynayaa iyadana in lagu darsado qodobada la rabo in Soomaaliya iyo Kenya ay iska kaashadaan si waxyaabahan loo ilaaliyo waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhacdooyinka xanuunka badnaa ee isdaba joogaha ee dalka Kenya ay u geysteen ururada xarg jirka ah waa runtii waa arrin xanuun badan oo dhacdadii u dambeysay Laamo iyo kuwo kale laba hal maal ay ka mid yihiin waxa ay muujinaysaa dhinacii walaalkood uu ka xigay inay dhaxanta ka soo gasho oo Soomaaliya looga soo gudbayo marka dowladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya haddaan nahay dabcan arrintaas ruuxadeena ceeb bay nagu noqotahay in dhulkeenu ay u noqoto hooy dad raba gobolka deganaanshihiisa inay waxyeelaan waxaan diyaar u nahay inaan si dhow wada shaqeyno gobolka iyo cid kastoo danaynaysa inay degaanadaan ay nabad iyo xasilooni aadaan dabcan dhinaca siyaasadda murugsan ee Soomaaliya naftirkeedu qayb bay ka tahay deganaansho la'aanta iyo amni xumada dalka ka jirta mar rabo inaan aad ugu dheeraado laakiin waxaan rajaynayaa arrintaas aniga iyo Axmed iyo cid kasta oo mas'uul u ah Soomaali dabcan way ku ceebeysan tahay
laakiin annaga ruuxadeena dadaal ma yaraysan duruufaha jira ayaa u baahan in isku mid laga ahaado. waxaan rajaynayaa gogoshan qiimaha badan inay u noqoto muftaax wada tashi ku salaysan maslaxadda gobolka oo dhan, ka fog qoys qura oo la rabo inay yeelato dadka Soomaaliyeed marka hore iyo marka xiga dadka rijinka ku dhaqan oo dhan. maxaa yeelay marka la maarmayno Ilaahay baa halka nagu beeray dalalka geeska oo Soomaalidu ku nooshahay marka dhinac laga fiiriyo waa dalalka ugu qanisan. haddii nabadgelyo istiqraar ay helaan dadkoodana ku filan noloshiisa, dad fara badan adduunyada sida meelaha kale loogu hijroodo loogu soo hijroon karaan. marka waxaan rajaynayaa in fakarkii hore fakar ka duwan oo ka ballaaran oo ka qoto dheer oo ka dowladaysan in lagu wajaho arrimaha kaalinta shacabku ama dadka ganacsatada ha noqdaan ama cuqaasha ha noqdaan ama culummada ha ahaadaan ee deegaanadan goboladan geeska Soomaalida ku dhaqan wax badan kaalintooda way ka soo baxeen. laakiin waxaan aniga isleeyahay kaalimaha dhinaca dowliga ah ayaa u baahan sidii hore in wax laga bedelo. aad baad u mahadsantihiin qadadan iyo quruxda badan iyo sida aad noo sharafteen. waynaga mahad celinaynaa dhammaantiin intiina halka joogtay iyo intay naga maqan runtii jeclayd inay midaan iyo mid ka badan noo samayso. annagana waxaan rajaynaynaa meesha aad naga filaysaan iyo meel ka fiican inaad nooga tashataan. waan jecelnahay inaad idinkana marar badan soo booqataan sida aan idiin sii booqanoono. xiriirka iyo wadajirka iyo walaalnimadana aan xoojino. qadiyadda geeska Afrika iyo Soomaalida gaar ahaanna aan intaan in ka badan ka wada shaqayno. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi